السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحاب تشرفت له سؤال هذا وحن ورئيسان دونا عاوة روك عداقي وينا عثمان خيره أو نن كنت تخصصي أمنياتك كان سو شقيي مدبضا إسلام كان خبير صوماليات عثمان خيره ديتاليسكيسا oo dheer gali mayno balse caawa waxaan ka wareysan doonaa geeyiga Soomaaliyeed ee geeska Afrika dhacdadii ugu dambeysay dagaalkii dhex maray koonfurta Soomaaliya iyo dawlad deegaanka Soomaalida dagaalkaas oo aan su'aal ka weydiin doono hadduu Ilaahay yiraahdo khabiir sare Ismaan Khayre ku soo dhawaada hadduu Ilaahay inoo suurtageliyo saasuu ku saabsanaan doonaa wareysigeenani bismillaahir rahmaanir rahiim mudane Ismaan waxaa tahay khabiir Soomaaliyeed oo cilmiga amniyaadka muddo badan ka soo shaqeynayay oo experti ah arinta aan rabnay wax ka weydiinana waxa weeye arin la xidhiidha amniga waxa jirtay inuu dagaal dhex maray koonfurta Soomaaliya iyo Soomaali galbeed dagaalkii lagu qaaday dawlad deegaanka Soomaaliyeed dhinaca Itoobiya dadka qaar ku sheegeen al-shabaab qaarna si kale ay u dhigeen dagaalkaas adiga guud ahaan sidee buu kula muuqdaa muxuu ahaabay kula tahay bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala ashrafil mursalin wa ala al-anbiya'i kulluhum ajma'in aad baad mahadsan tahay boqor jaaluud iyo dhammaan asxaabta kale ee Soomaaliyeed ama ina dhageysanaysa ama su'aalahan iyo barnaamijkan inaad samayso kala qayb qaadatay aad baad mahadsantihiin adiga iyo akhyaartaaduba asxaabtaaduba aad baad ugu mahadsantihiin inaad su'aalahan soo diyaarisaan oo dadka runtii aanba Isbaaniya aan ka mid ahay ee Soomaaliyeed ee Soomaalinimada iyo qarannimada Soomaaliyeed iyo magaca Soomaalinimadu ku weyn meel kasta ay joogaanba in dhacdadii wax laga weydiiyo dhacday dagaalkii lagaga qaaday koonfurta Soomaaliya lagaga qaaday dawlad deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya lagaga qaaday runtii aad bay muhiim u tahay in la fahansiiyo mujtamaca weynaha ama bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta ay joogto dibad iyo gudo da'yarta iyo runtii dadka ay ka dahsoon tahayba in arrintaa la fahansiiyo aad bay muhiim u tahay waadna ku mahadsantihiin oo aad baad ugu mahadsan tahay markaa u soo noqdo mahadcelin kadib
su-aashii aad weydiisay waa runtaadoo dadka qaar waxay ku fasireen in dagaalkaas ay dagaalyahanada shabaab ay qaadeen oo ay ku qaadeen dowlad deegaanka iyo dowlad deegaanka soomaaliyeed dhinaca Ethiopia ay ku qaadeen. dadka qaarna si kale u dhigeen oo dowlado kale iyo dowladda hadda cusub ee Soomaaliya iyo cid baa ka dambeysay oo isku raacsanayd in xaggan laga galo bay ku fasireen. anigoo raacaya fasiraadahaas hore ee iga horreeyay waxaan ku dari lahaa waxaa kaloo ku jirtay arrin qabyaalad ku salaysanina oo ku jirtay qabyaalad ku salaysan oo 1991 salka ku haysta iyaduna way ku taxalluqdaa oo qayb ka mid ah bay noqonaysaa. waxaan u arkaa dagaalkan lagu qaaday dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee dhinaca Ethiopia waxaa ka shaqeeyay dowlado cadowga ah Soomaaliya iyo jiritaankeeda. waxaana loo adeegsaday maamulka hadda joogay uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheikh baa loo adeegsaday. waxaa ka shaqeeyay dowladaha Djibouti iyo Masar iyo kuwa kale oo badan oo runtii dadku iska garan karo kuwa ay yihiin ayaa ku lug leh. saddex siyoodna waa loo dhigi karaa way ugu lug leeyihiin. sida koowaad horta waxa weeye muranka kala dhexeeya webiga Niil Masaarida iyo Ethiopia muddada soo socday. webiga Niil waxaynu ognahay waa webi Niil Ethiopia leedahay oo madax ka yimaada kasoo bilowda. muranka marka halkaas oo dowladdii hore uu madaxweynaha ka ahaa mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu dhexdhexaad ka noqday iyo inuu heshiisiyo labada dowladood. waxaad wada ogtihiin Soomaalidu ka dheragsan tahay in madaxweynaha cusub ee Xasan Sheikh ee hadda dhowaan la doortay bishii shanaad 15 uu ka degay meelihii uu tagay ay ka mid ahayd Masar isaga oo madaxweyne Siisi ay isgarab taagan yihiinna in uu yidhi oo baaq ku soo saareen labadoodu ay ku soo saareen inuu ku taageersan yahay oo la safan yahay dhinaca Masar. maalin labaadii markii uu soo noqdayna sida 3 maalmood kadib markii uu joogay dalku soo noqday dagaal baa lagaga qaaday koonfur qorshaysan oo muddo ayaa waxaa lagaga qaaday dhinaca koonfurta bay iyo Boqol ilaa Hiiraan iyo Galguduud. dagaal baa lagaga qaaday dowlad deegaanka uu madaxweynaha ka yahay Mustafa Cumar uu madaxweynaha ka yahay ee Soomaaliyeed baa dagaal lagaga qaaday deegaanadaas hadda aan soo sheegnay. dagaalkaasi dhalinyarada shabaab ma sheegan umay oran naga qaadnay sidiisa ilaa hadda may sheegan. dagaal qorsaysan oo sida la sheegayo taliyaha nabadgelyada Soomaaliya Mahad Salaad iyo taliye Mahad Karatay oo Jilib iyo intaa xukuma koonfurta xukuma iyo Xasan Sheikh iyo Masar ay wada wadeen oo isla og yihiin. la oran karana Ismaaciil Cumar Geela ka shaqeeyay iyo dowladda Djibouti buu dagaalkaasi ahaa runtii kuna fasiran yahay kuna cadiin. waana dagaal loogu talagalay dhinac si u reeraysan oo reer lagu qaadayo oo qabyaaladaysan oo la doonayo reer in lala dagaalamo. ilaa 1991 Soomaalinimadu waxay la hagaagi weyday oo waxba dowladda Soomaaliyeed ay la soo noqon weyday. labadan qaybood iyo qaybtan Soomaaliyeed ee Soomaaliya inta ugu badan degta dowlad deegaankana degta oo dagaalka lagu qaadayo oo aan joogsiga lahayn xoolahoodii iyo hantidoodii lagu xalaashanayo wixii xamar ka dhacay waana weyn markii ay campaign-ka ku jireen qoladan hadda dowladda qabsatay qabiil bay ku soo qorayeen boorarka. xilligii ay campaign-ka ku jireen qabiil bay ku soo qorayeen. 1991 bay ku soo qorayeen. reer hebel bay ku soo qorayeen oo afka ku dhufanayeen. nin madaxweyne ah oo markaa joogo oo isagu markii horena xamarba ku dhashay markii dambena dibadaha ku korado aan qabiilba wuxuu ka ogyahay jirin ayaa qabiil dhan oo Soomaaliyeed oo geeska Afrikaba dega lagu magac dhabay
oo geela lagu qoriyey oo allabari lagu qaadanayo geel lagu qalanayay waa wax iska cad bay ahayd waana wax dhaawacaya soomaalinimada iyo midnimada iyo qarannimada iyo dowladnimada soomaaliyeed inay socoto shayga ugu weyn ee ugu horeeya ee dhaawacaya ee horena u dhaawacay bay ka mid tahay marka dagaalkaasi dagaal qorshaysan buu ahaa lagu qaaday dowlad deegaanka iyadoo loo jeedo oo dadka loo rabo in lagu khaldo Ethiopia ma ku qaaday dagaal dadka waxaa lagu khaldayaa Ethiopia ma dagaal ku qaaday Ethiopia markii Tigray uu joogay nimankii rajciyiinta ahaa ee gumaystayaha ay joogeen dee dagaal laguma qaadayn walaal iyo saaxiib baa lala ah Ethiopia cusub ee doctorku hogaaminayo Dr. Abiy Ahmed ee geeska Afrikaba nabad ka dhigay ee Eritrea iyo Ethiopia nabad ka dhaliyay ee Soomaaliya iyo Ethiopia nabad ka dhaliyay arrintii dagaalka ahayd nabad ku bedelay in la yiraahdo dagaal baa lagu qaadaya waxaan u arkaa runtii arrin aan shaqayn doonin laakiin caqli xumo ah waa caqli xumo aan sii shaqayn doonin baan u arkaa khalad weyn oo la galay baan u arkaa gardarro cad baan u arkaa oo lagu qaaday haddii Ethiopia loo jeedayna Ethiopia lagu qaaday haddii waxa la laayay iyo deegaanka la laayay la doonayay in la dafuro Ethiopia lagu khaldana deegaankii Soomaaliyeed iyo dadkii Soomaaliyeed walaalaha ay dowladnimada ku lahaa ee calankanba u soo dhintay 150 sanadood cid calankan buluuga u soo halgantay oo u soo dhimatay waxa jira dadka hadda dowlad deegaanka degan ee Ethiopia lala dagaalamaya lagu sheegayo baa jira aad u mahadsan tahay khabiir sare mudane Cismaan Khayre su-aasha hadda aad dhamaysay inkastoo soo gabagabaysay haddana su-aal baan kaa siiyey dhaxweydiin aada u kooban waqtigii ay ku sugnaayeen madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweynaha dalka Masar Cabdicasiis al-Sisi waxaa soo baxday odhanaysa oo ay ka wada hadleen oo xagga fila Soomaaliya kuwii macnaha saraakiishii ka socotay ee madaxweynuhu horkacayay ka soo baxday oo odhanaysa webiga Niil si wada jir ah ayaan u difaacanaynaa arrimahaas maalmaha aad u haystay meediyaha iyo social media iyo idaacadaha Soomaalidaba su-aasha marka ku weydiinay waxay tahay Soomaaliya ma webi Niil la yiraahdo ayaa mara runtii arrintaas waxay ahayd arrin lagu qoslo oo lala yaabo bay ahayd oo aad soconaysa caqli darro iyo aqoon darro labaduba meesha way ku jirtaa Soomaaliya waa dowlad jirta dagaal sokeeya ka dhaco burbur ha ka jiro waa dowlad qaramada midoobay ka tirsan oo jirto oo lambar iyo kursi leh Soomaaliya webi Niil la yiraahdo ma maro shaqada kuma webiga Niil wuxuu ka bilowdaa waddanka Ethiopia buu dhex maraa iyaguna ka bilowdaa inay markaa ka faa'iideystaan Ethiopia webiga Niil oo koronto iyo dab iyo biyo beerahaba ay u isticmaalaan dee xaq bay u leeyihiin waa wixii Ilaahay siiyay waa khayraad Ilaahay siiyay cidda kale ee webigu uu iyana dhex maray ee sida Suudaan iyo Masar uu aadana in iyaguna ay ka faa'iideystaan iyagana waa loo ogol yahay waa khayraad Ilaahay siiyay Soomaaliya mowqifkeeda iyo waajibaadkeeda wuxuu yahay laba dowladood oo Afrikaan oo aynu midna daris nahdo wax waliba inaga dhexeeya dal iyo dadba inaga dhexeeyo iyo darisnimo midna ayna shaqaba ku lahayno Afrikanimadu inaga dhexeyso Afrika inaga dhexeyso in horta loo kala hiiliyo waliba tii fogeyd waxba inaga dhexaynin Afrikanimada mooyaane in loo hiiliyo horta waa aqoon darro iyo khalad loo bareeray baan anigu oo arkaya waxa loogu hiilinaya haddana inay dulmi tahay يحقدر قفك والله اللي يقلل أسرة خاء إن كان ظالما أو مظلوما ولكن أهيل بالي هدو قردرين هنا وهيل هدي اللي قردرين هنا وهيل وحاله هدو ولا قردرين هنا قرنه هدي وقردرين سيدا وهيل قردر هذا كقبالي Soomaaliya waajibkeedu waxay ahayd inay dhex gasho dowladda oo dhexdhexaadiso haddii aanay dhexdhexaadinaynin inay arrintan dhex ka noqoto marka webi Niil la yidhaahdo Soomaaliya shaqo ku leedahay ma jirtee waxay ahayd gardarro aqoon darro iyo khibrad yari iyo weliba cadaalad darro ay ku dheehan tahay oo Masar Qaahiro lagu hiiliyay
aad baad mahadsan tahay khabiir sare mudane cismaan khayre mudane cismaan sida aan wada ogsoognahay caalamka shuruuc iyo qawaaniin baa ayaa u yaala laba dal oo jaar ah marka ay ama kooxo abaabulan oo ama jabhad ha ahaadaan dalkan ka socota ama wax aan hadda baryahan dambe loo yaqaano argagixisada ahaadaan amaba wax ay dawladdu markaa ugu tala gashay oo ay dawladdu ka dambaysa ahaadaane waxaa jirta qaab looga hadlo waayo dal kasta isaga ayaa macnaha xuduudiisa iyo amnigiisa waajibaad ka saaran yahay haddii dalkaas dal kale lagaga soo xadgudbo waxaa jira siyaabo loo wada dhaqmo marka tusaale ahaan oo kale in haddii macnaha dawladda kale ku khaldantay inay raaligelin ka bixiso in wixii macnaha laga hadlo in haddii kooxo ka baxsan markaa dawladda ay ka soo galaan aagaasna ay dawladdu ra'yigeeda kaga aadan waadixa ka bixiso iyada oo shacabka dalkaas iyo dalka kaleba la wadaagaysa ka soo saaraysa macnaha qodobo cad oo la yaqaano caalamka ka dhaxeeya dawladda Soomaaliya xukuumadda hadda jirta kama ayna hadal falalkii dagaaladii u dambeeyay meesha ka dhacay maxaad u malaynaysaa sababta ay dawladda Soomaaliya ay uga aamusan tahay arrintan hadda miidiyaha ku jirta ee Soomaalidu isla dhex wareegaysa in dawladda xukuumaddu ka dambaysa miyana arrinta marka halka ayna sii cadaanin marka aamusnaanta ilaa hadda xukuumadda Soomaaliya ay ka aamusan tahay ka hadalka dagaalkaas ay uga aamusan tahay ilaa hadda ay jirto Soomaalidu waa su'aal fiican runtii waana su'aal u baahan qoto dheer u baahan in aad loo sharaxo Soomaalidu waxaa ku mahmaadaa shibad aamuska lagu meheriya qofku waxaa macnaha body language waxa la dhaho ama waxyaalaha laga garto qofku wuxuu aaminsan yahay iyo waxa uu rabay wuxuu diidan yahay waxaa ka mid ah aamuska haddii wax laga aamuso macnaheedu ka raali baan hay waxaa la odhan karaa way ku lug leeyihiin mar hadday ka aamuseen oo ilaahda ay ka hadli waayeen dawladda Soomaaliyeed ee hadda hogaaminayo Xasan Sheekh ilaa hadda haddii ay ka hadli weydeen weerarkii laga qaaday dalka Soomaaliya cid kasta baa ka qaado iyagoo inay ama cid ku sheegaan ama ay dee bareeraan oo yidhahdaan Soomaaliya ay soo weerartay weerarkii laga qaaday dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee dhinaca Itoobiya ama Itoobiyaba aan nidhaan lagu qaaday si iyagoo dhigayaan haddii dee aan ku lug lahayn oo shaqo ku lahayn way ka hadli lahayn oo waxay odhan lahayn beri bay iska dhigi lahaayeen oo beri iskama dhigin raaligelin iyo apologize kama bixinin dalkan laga soo weerartamay waa dal jira oo dalka Soomaaliya la yidhahdo dalka weerarka laga soo qaado Soomaaliya marka inay dee tirahdo weerarka annaga soo qaaday oo caddaysato iyo inay tirahdo warmaanaan soo qaadin shaqana kuma leeyihin bala kale oo nahaysataa weerarka meesha ka soo qaaday labadaa un bay miduna labadii midna bay odhan macnaheedu markaa waxa weeye halkaa way ku lug leeyihiin waxna waa ka og yihiin waana sida aan sheegayoo waa wax isdaba socday ilaa 91kii arrinta socotee arrimaha socday bay ka mid tahay waa sida waan gartay aad baad mahadsan tahay kooxahan soo abaabulay ee afka soo duubtay cid kasta ha ka dambeeyaan cid kastana ha ahaadaane falcelin aad cajiib u abay kala kulmeen hadday noqoto ciidamada Soomaali galbeed ama dowladda deegaanka Soomaalida ciidamada ka jira ee kala duwan ciidamada gaarka ah iyo kuwan maleeshiyaadka ah iyo shacabkii iyo xataa ciidamadii qaranka oo qayb ka ah maxaad is leedahay falcelintaas aadka cajiibka u ahayd meeshan inay qaab kale uga ay xisaab khaldan isku dhufsadeen mis odhan kartaa dadkan soo weerartamay oo islahaa macnaha meeshan hawsheedu aad u jilicsan tahay oo waxay kala kulmeen iyo dhibaatada xooggan ee soo gaadhay markaad eegto sababtoo ah waxaa laga dilay 813 ciidankii soo weerartamay magaca al-shabaab markaa isku sheegayay baa laga dilay laakiin
waxaana ka mid ah 24 nin oo saraakiisha ugu sarsareysay ah marka hadafkoodii kumayna guuleysan ma is odhan kartaayo ma is odhan kartaa talabaad meeshan waxay ka filayeen iyo waxay kala kulmeen waa aad bay u kala fogyiin runtii waa su-aal aada u qiimo badan marka ugu horeysa waxaan halkan uga mahad celinayaa madaxweynaha dowlad deegaanka ummadda Soomaaliyeed Mustafa Maxamed Cumar Mustafa Cagshar sidii uu u maamulay amniga iyo ciidankiisa iyo bulshada shacabkaba uu uga shaqeeyay guud ahaan waxaan si runtii qiimo leh ugu mahad celinayaa ciidamada liyu booliiska iyo ciidamada qaranka ee dowlad deegaanka Soomaaliyeed iyo shacabka dowlad deegaanku sidii iskaashiga iyo midnimada lahayd runtii ay dalkooda iyo deegaankooda iyo naftooda iyo maalkooda iyo runtii ay u difaaceen aad bay ugu mahadsan yihiin waana ku garab taagannahay meel kastoo aan joogno waxaan leenahay weliba guuleysta mar walba oo laydinka gardaray intaa kadib runtii way fashilmeen inqilaab fashilmay buu ahaa inqilaab la soo qaaday oo loogu talagalay dowlad deegaanka in lagu burburiyo Ethiopiana wax lagu yaaleeyo xaggana sida la sheegayo Tigray iyo Masaari iyo xaggan la kolba ina cidi ka soo noqonin ay ku riiqmeen baan xogta ku haynaa dhabta ah wax ka soo noqday oo ka soo laabtay ma jiraan marka dee run loo kacana waa dal dowlad iyo system iyo kala dambeyn la weeyay dowlad deegaanka iyo Ethiopia wax maanta hadda Soomaaliya oo kala daadsan ama koonfurta Soomaaliya ay u bawac dhigi karto ama ay weerari karto haddii aan dee caqligu shaqeynayo maaha waa system jira oo jiray oo dhisan oo ciidan iyo dowladnimo iyo kala dambeyn iyo dhaqaale iyo logistico intaba leh way ku khaldameen xisaab khaldan bay runtii isu geysteen kelmadda waa sidaa aad u tidhi arrimihii qabaa'ilka iyo shicibkii iyo wixii soddonka sano iska socday unbay ka soo qaadeen meesha in dowladii xoog jiraba cidi kuma xisaabtamin marka dee hadda un baan malay wixii ka dambeeyay inay wixii weerarkan ka dambeeyay soo qaaday hadda un wixii ka dambeeyay in baan malaynaya inay un dee muraayada isku eegi doonaan oo ay cagaha dhulka dhigi doonaan siday ila tahay aad baad u mahadsan tahay mudane Cismaan Khayre khabiir sare oo dhinaca amniga ku takhasusay mahadsan su-aasha kale ayaan raba inaan iyadana ku weydiiyo muddadii uu joogay madaxweyne mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu madaxweynaha Soomaaliya ahaa wax dagaal ah oo Itoobiya iyo Soomaaliya dhex maray ma jirin iyo xataa argagixisada Soomaaliya kasoo gudubtay ma aysan jirin xukuumadan hadda jirta ee Xasan Sheekh horkacayo isla markaana oo uu maha salaadna uu ka yahay agaasimaha sirdoonka sidaad ogtahayba xukuumadani door hore ayaa jirtay oo dowladda Soomaaliya soo xukuntay oo waa teeramkii labaad teeramkan ay hadda joogaan marka doorkii hore uu Xasan Sheekh joogay muddo 3 jeer abay 3 aag ka weerareen Soomaali galbeed ama dhulkan ogaadeen loo yaqaano ama dowladda deegaanka Soomaaliyeed maxaa haddana waa adiga arkaya dagaalada socda marka maxaad is leedahay maxaa isku beegaya markasta oo xukuumadan Xasan Sheekh ay timaado weerarada aan gabashada lahayn ee lagu qaadayo Soomaali galbeed ma is odhan kartaa xukuumadana ayaa waxaan dabada ka riixaysa maxaa yeelay muddo ku dhow 6 sano oo Farmaajo joogay wax dagaal oo lagu qaaday Soomaali galbeed ma jirin maxaa keenaya markay Xasan Sheekh joogo inuu dagaal lagu qaado Soomaali galbeed su'aal qiimo badan weeye runtii una baahan Soomaalidu inay fahanto meel kasta ay joogto Xasan Sheekh iyo kooxdiisu hadda markii ay ku jireen campaignka siyaasadeed ee ay ku tartamayeen madaxweynenimada qaab qabiil ay isticmaalayeen kelmado words kelmadaha loo isticmaalo qabiilka iyo kicinta iyo reer hebel bay isticmaalayeen ama awrta ku qorayeen ama geela ku qorayeen ama ay ku ducaysanayeen ama xitaa ciidamada marka uu la hadlayay marka dib u noqdo waxay
ciidamada markii uu la hadlayay hebelow wiilkaygiiow ka soo bax buu lahaa waad iska arkaysaa markaa inuu u organize garaysan yahay iyagoo qaab diiniya weliba ku gabanayo oo dambi jadiid la yidhahdo haddana waxay organized u yihiin qaab qabiil bay u shaqeynayaan iyo qabyaalad bay ku shaqeynayaan taasaa marka waxay keentay markii horena in dagaal lagu qaado dowlad deegaanka xilligii hore uu xasan sheekh joogay uu dowlad deegaankana madaxweynaha ka ahaa ninkii la odhan jiray intii aan mustafaba uusan madaxweynaha ka noqonay wiilkii hore hadda xidhan magaca lahaa runtii cabdi maxamed cumar cabdi maxamed cumar uu joogay iyo xilligii mustafaba iyagu isku mid bay u ahaayeen wuxuuna waa waxa sida aan kasoo sheekeeyay waa arrin taariikhi oo socoto oo ilaa 91kii aan mar keliya istaagin ee la wado ama Djibouti ha laga wado ama xamar ha laga wado dowladda shisheeye ha wadeen hargeysa xitaa ha laga wado arrin dad soomaalinimada la dagaalamaya ay wadaan dad soomaalinimada iyo midnimada la dagaalamaya ay wadaan oo isku raacsiisan yihiin oo la og yahay meelaha ay ka imanayso ee kasoo burqanayso la og yahay wey arrintu taasaa keentay marka tii hore ee farmaajo iyo markii uu joogay farmaajo nin qaran buu ahaa nin soomaaliyeed oo qaran madaxweyne qaran oo soomaaliya u tahay soomaalina soomaali u tahay buu ahaa mabda uu ku shaqeynayana waxaa ka akida oo ka muuqda inuusan marnaba soomaali gobolladeeda iyo deegaankeeda uusan ka muujinin wax eex la yidhaahdo ama siiri qabyaaladeedna aan marna afuufin 6 sane uu meesha joogay runtii waa nin aqoon leh waa araga adduunka soo arkay siduu u shaqeeyo isagoo yaroo dhalinyaraha dibadaha tegay sida loo shaqeeyo caalamka u shaqeeya arkay wax ka garanaya ninka Abiy Ahmedna waa nin aqoon leh siyaasadda na in badan kusoo jiray waa doctor heshiiskii saddex geesoodka ah ee Eritrea iyo Ethiopia iyo Soomaaliya wuxuu ku salaysnaa aan isnabad gelino oo isxaq dhowro oo mid qof dowladda kale qarannimadeeda iyo sovereignty-geeda iyo maaragtay xuduudaheeda iyo dowladnimadeeda iyo midnimada qarannimadeeda ha ilaaliso balguushi heshiiskaas waxay ahayd inuu socdo waana heshiiska keliya ee dowladnimada Soomaaliya ay ku soo noqon karto aad baad u mahadsan tahay waxaa jirta arrin identity-ga ku saabsan oo tusaale ahaan oo kale Soomaali waxaynu sida saxda u naqaanaa shanta Soomaaliyeed ee degta shanta Soomaaliyeed kala degan eegayga Soomaaliyeed oo dhammaantood wada Soomaali ah tusaale ahaan oo kale sida Djibouti waqooyi koonfur NFD iyo Soomaali galbeed shantaas ayaa waxaa loo yaqaanaa shanta Soomaaliyeed shantaas waxaa laga yaabaa 5 wiil ama 5 gabdhood oo walaalaa inay ku kala nool yihiin oo midba meesha ay joogto ay ku dhalatay waxaa jirta falsafad ka soo burqata dhinaca koonfurta oo iyadu aad moodo inay Soomaalinimada ay bixiso tusaale ahaan oo kale dagaalkan hadda lagu qaaday koonfur laga soo qaaday ee Soomaali galbeed lagu qaaday waxaa loo dhigayay dadku iyagoo ismuujinayn oo magacan argixisada qolyaha afka duuban la iska yar dad baya haddana waxaa media ku jirtay dadkan dagaalka taageeraya ay lahaayeen annagu xabashi iyo ilaa iyo Addis Ababa ayaan ku soconaa jidka baneeya marka dad kala laayay dagaalka ku dhintana waa Soomaali marka arinta identity-ga ma cid gaara ama shakhsiyaad ama shanta Soomaaliyeed meel kamida ma wax ay kaliya bixin kartaa ama mise waa wax dhiigga Soomaaliyeed uu qofku uu u dhashay oo cid gaarina ay bixin Soomaali ka wada dhaxeeyo horta halka aan ka saxeeyay wari aad baan san tahay shan Soomaaliyeed ma jirtay Soomaalidu waa mid oo hal mid waxaa jiray 5 gumayste oo Soomaaliya ku soo duulay oo deegaanada Soomaalida ama gobollada Soomaalida midba gobol qabsaday shanta gumaystaan ku tirinaya waa Faransiiska oo Djibouti qabsaday Ethiopia oo qabsatay gobolka galbeedka
ama Soomaali galbeed ama dowlad deegaanka hadda loo yaqaano ingiriiska oo qabsaday gobolka waqooyiga talyaaniga oo qabsaday gobolka koonfurta iyo Kenya oo qabsatay gobolka southka ee NFD loo yaqaano marka 5 dowladood oo 5 gumaysta oo isla socda oo runtii ingiriiska kulligood uu wakiil ka yahay dowladda ingiriiska aan hadda joogno ka hadlayno uu wakiil ka yahay baa Soomaaliya ku soo duushay shantoodaas marka gobolladii iyo deegaanadii Soomaaliya weerar ku soo qaado qaybqaybsaday ee 5 Soomaaliyeed oo kala Soomaali ah oo kala magac ah oo kala qoloyin ma jirto Soomaalidu waa hal qolo waana hal Soomaali jirta Soomaalinimadana waxa lagu noqdaa inuu qofku Soomaali yahay waa loo dhashaa ciidamo bixiso gaar cid kale oo Soomaali ah oo dalka Soomaaliya degan oo aan Soomaali ahayn de Soomaali ma aha ma jirto taa waxa ku cadaynaysa dowladda iyo baawarka Soomaaliyeed ee hadda jira waxa lagu qaybiyaa 5 beelood ama 4.5 wax loo yaqaan 4.5 ka hadda baawarka Soomaaliya iyo golaha wasiirada iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ay ku joogaan wuxuu ka kooban yahay Djibouti kuwa jooga kuwa Jigjiga iyo Awaare jooga kuwa Wajeer iyo Gaarso jooga kuwa Kismaayo iyo Gedo iyo Jubbaland jooga iyo kuwa Hargeysa iyo Burco jooga intii waa ku jiraan hal qolo oo ka maqan oo Soomaali sheegata ma jirto dadna Soomaaliya waa Soomaali waa halka Soomaali Soomaalidu waa halka Soomaali haddii ay Soomaaliya kala tirtiraan Soomaaliyo haddii kala tirtiraan waxay ka muuqan lahayd dhismaha iyo systemka dowladnimada Soomaaliyeed ka muuqan lahayd qaar baa laga tagi lahaa qaar baa marka meesha kaliya jooga qof kasta iyo qabiil kasta oo Soomaaliyeed ama Djibouti ha joogo jilib kasta oo Soomaaliyeed ama Jigjiga ha joogo ama Wajeer ha joogo ama Xamar ha joogo ama Hargeysa ha joogo wuu ku jiraa taas ku tusaysa marka Soomaalidu inay hal tahay laakiin gumaystayaashii ku soo duulay waa shaqo taas ku shaqeeyay aad baad maasantahay si fiican ayaad u dhigtay dagaalkan koonfurta laga soo qaaday ama al-shabaab soo qaado magac al-shabaab la soo xidho ama magac kale la soo xidho ama xukuumadda haatan jirta ee fiila Soomaaliya ha ka dambeysay cid kastana dawladda ka soo riixday dagaalkaas waxa laga soo shaqeynayay sida ay sheegayaan khubarada ku xil dheer arrimaha dagaalada oo aad koob ka tahay iyo waliba xogaha lala socday iyo kuwa soo baxayaba oo isku si natiijada u soo baxayaan muddo 3 sano la diyaarinayay dagaalkan marka waxaana lagu soo afjaray muddo 3 cisho marka ma la is oran karaa Soomaalida koonfurta waliba aagagan laga soo duulay waxa ka kakan oo ka adag Soomaali galbeed ama dowladdeegaanka Soomaalida dadka ku nool sababtoo ah wax 3 sano la soo diyaarinayay ayaa waxa lagu burburiyay muddo ku ag 3 cisho kaliya marka ma la oran karaa Soomaalida koonfurta gaar ahaan kuwa aagaga dagaalka laga soo qaaday Soomaali galbeed ba ayaa ka kakan oo ka adag runtii waa arrin xaqiiqo oo sidaa sheegtay waayo dowlad deegaanka Soomaalida ee dhinaca Itoobiya waa dowlad jirta oo system 3 cisho iska daayaan waxaan qabaa 3 saacadood gudahood bay Soomaaliya oo dhan koonfurta iska dhaafay Soomaaliya oo dhan ilaa waqooyi ilaa koonfur 3 saacadood bay ku qaban karaan runtii oo waliba idan ugu yeeri karaan amusan qabo waa system dhisan oo dowlad iyo logistic iyo ciidan iyo system leh lacagtooda shaqeyso dadkan marka hadda 3 casho waa waqti dheer baan lagu qabaa waxa lagu soo afjari karaa wax ka yar bay ku soo afjari karayeen runtii waan ku soo afjareen waxay la mid tahay berigii 16 sanadood baa dhinacan koonfurta waxa laga waayay heshiis kasta iyo shir kasta oo Soomaali loo qabto xaggooda ka socon weyd ilaa Xamar iyo caasimadda ay gaarsiiyeen Greenland in la kala dhigo ay gaarsiiyeen berigii marka ay meel walba maxkamadihii iyo qabsadeen qaylada la wareegeen ay yiraahdeen dunida oo dhan baan qabsanayna Addis Ababa ka soo quraacanayna Cabdullaahi Yuusuf iyo taakuladii uu ka helay Tigray dowladda Itoobiya 6 casho gudahood bay ku soo afjareen marka 16 years to 6 days baa la yiraahdaa tanna marka waxaynu u bixinaynaa 3 years to 3 days 3 sano waxay lagu diyaarinayay
baa 3 saacadood ama 3 maalmood lagu soo aftiray marka waa dad u baahan inay isqiyaasaan waqti muraad isku eegaan dadkan hadda iyo jeer laga fadhiilay oo sida aad iyo aad baad mahadsan tahay khabiir sare mudan Cismaan su-aasha kale ee rabay inaan ku weydiiyo ayaa waxay tahay khabiir sare Cismaanow maxay tahay oo aad u malaynaysaa oo ay ku dambayn doontaa dhiiqadan lugaha lala galay waxay la tahay runtii hadda waa cusub baa ku bariyey dadkan dhoobada lugaha kula jira ama dhiiqada waxayna ila tahay inay wixii hadda ka dambeeya ay Soomaali isla raadiyaan ku wada qaataan oo arrintan ku qudra qaataan tiri 3 casho lagu soo aftiray wixii ay abaabulayeen masiibadii dowladaha badanina ay weliba ku garab siinayeen dowladaha Djibouti iyo Masaarida ay garab taagnaayeen 3 casho gudahood baa falilah alxamdu horta ilaahay baa mahadle in 3 casho gudahood lagu soo aftiray waxaan aadna mar labaad ugu mahadcelinayaa dadka dowlad deegaanka iyo madaxdooda amniga iyo ciidamadooda iyo madaxweynahooda mudane Mustafa Maxamed Cumar runtii Soomaaliya oo dhan difaaceen waayo hadda Soomaaliya meesha kaliya ee Soomaaliyeed ee maanta dowlad iyo system ka jiro ee qof kasta oo Soomaali uu ku nool yahay ee hantidiisa iyo ubadkiisa iyo cid waliba ugu badbaadayso ee ilaa hadda aynu haynaaba waa dowlad deegaanka iyo dhinacan kale ee Kenya iyo Gaarsa iyo Wajeer iyo hadda marka inagu sida kale Soomaalida inteeda kale qaab qabiilaho oo iska nasiiba baa lagaga nool yahay mooyaan system dowliga lagagama noola system dowliga oo ku ilaalinaya ilaa Hargeysa iyo Berbera ilaa Baraawe system dowliga oo ku ilaalinaya qofka ilaalinaya xaqiisa iyo Soomaalinimadiisa iyo xuquuqdiisa ilaalinaya ma jiro qaab qabiila baa Soomaalidu isugu dhexnoosha oo isu ilaalisa haddii qofka la dilayana loo dilaa haddii la deynayana loo daayado loogaga baqa laakiin labada meelood baynu haysanaa gaar ahaan waxaynu haysanaa maamulka dowlad deegaanka ee dhinaca Ethiopia baynu haysanaa meel maanta dowlad iyo system inooga jiro oo aynu Soomaali leedahay in isaga la ilaashado oo la wada ilaashado oo raaligelin laga bixiyo wixii dhacay oo lala shaqeeyo iyaga وحدودها لقى لا شقeeyo oo meel kasta oo dhibaato kaga imanayso laga xogsiyo baa loo baahan runtii saasay ku iman karaysaa laakiin sidan kale anigu waxaan qabaa wixii kale ee aan intaa ahaynba waxaan qabaa dee xisaab khaldan baan qabaa la isku dhufsaday waan gartay sideedaba marka gurigaaga lagu soo doonto weelkaagii iyo muraadahaagii lagaa jajabiyo dhibaato badan lagu geysto gurigaaga qayb ka mid la gubo oo laga yaabo maaragtay wixii gurigaaga ku dhex yaalayna qaybo ka mid dhaawac soo gaaraan waxaa qasaba inuu qof uu sameynayo wax la yiraahdo revenge ama jawaab celin haddan Soomaali galbeed ama dowladda Soomaalida ama sometimes sida dadku u yaqaanaan ogaadeen iyo dhulkan la yiraahdo ama Soomaali galbeed ama Ethiopia ba dhabe grid Ethiopia ba weerar lagu soo qaaday runtii aan loo meeldayn aad moodo inuu degdeg ku jiro oo ilaa iyo Qaahira la tagay ka bacdina maalmo kadib dagaaladii bilaameen marka dadkani waa dad la soo weeraray waxa laga yaabaa inay jawaabo adag oo aan wali kuwa la bixiyay ka si halis badan ay bixin doonaan oo cawaaqib xuleed iska leh maxaad u malaynaysaa in jawaabahaas adag oo laga yaabo inay nooc kasta noqdaan meelaha hadda laga filayo meelo ka cajiibsanna la iskaga soo bixi karo sideed kula tahay inay ugu birdhigi karaan nin uu amisom ku ilaaliso kaare ama beebe meeshuu ka degan yahay xamar ama muqdisho quwadaha intaas ay kusoo wajahan sideed u malaynaysaa inuu u maareyn karo ama uga hortegi karo ama isaga difaaci doono 2001 berigii Bush iyo Blair waa ninkii Tony Blair prime ministerkii Ingiriiska xilliga ahaa iyo madaxweyne Bushkii labaad ee waddanka Mareykanka xilligii
argagixisada qodob baa laga soo saaray in sharci ahaan loogu tegi karo meesha ay ka imanayaanba marka xamar haddii ay noqoto dee meel argagixisada laga soo abaabulo dowlad deegaanka mudane mustafe maxamed cumar wuxuu xaq u leeyahay inuu xamar meesha ay kasoo burqanayso ku weeraro uu xaq u leeyahay uu halkaa ku tirtiro ku baabi'iyo uu xaq u leeyahay sharcigu siinaya wuxuu weli ixtiraamayaa saan u malaynaya soomaalinimada uu ixtiraamayaa oo runtii wuxuu xaq u leeyahay inuu xamar iyo meesha laga soo weerarayo jilib iyo baydhabo iyo meesha doonta ha noqoto beledweyne meesha weerarka kaga soo socda waana sharci meesha weerarka lagaga soo qaadayo inaad meesha lafteeda tagto waa sharci wuu tegi karaa waana iman karaa runtii marka in uu marka wuu yidhi madaxweynaha dowlad deegaanka wuu yidhi bofasonka waxaanu ka dhiganaynaa wuu yidhi meel gudaha soomaaliya waanu ka dhigan karaa waayo gardarra cad iyo dad la soo abaabulay oo laga soo shaqeeyey oo magac diimeed lasoo hubiyey oo aan jirin baa lagaga soo qaaday dhulkii uu xukumayey weerar lagaga soo qaaday iyadoo ujeedooyin badan laga leeyahay okay aad baad mahadsan tahay khabiir sare mudane cusmaan oo ku takhasusay dhinaca amniyaadka Ethiopia waxay jawaabihii hadda ugu dambeeyay ay bixisay gudaha Soomaaliya waxaa ka mid ah inay diyaaradahan casriga ah ee Baraktar BT2 ay ku ilaa 7 goobood 7 xarumood oo al-shabaab isugu imanaysay ay ku duqeysay isla markaana ay ka mid yihiin baabuur technical ah oo al-shabaab ka gubtay oo diyaaradahaas ka duqeeyeen kuna laysay saraakiil sare oo al-shabaab ah muddadii dagaalku maalintuu bilaabmay maalintii ku xigtay xasan sheekh wuxuu u magacaabay wasiirka diinta iyo awqaafta ku-xigeenkii ururka al-shabaab marna ahaa afhayeenka ururka al-shabaab wuxuu ka dhigay wasiirka diinta iyo awqaafta ee Soomaaliya ninka la yiraahdo Robo marka ma la odhan karaa dagaalkan dhacay iyo magacaabidda ku-xigeenkii al-shabaab kamid ahaana aasaasyaashii waa jawaab cad oo wada socota dagaalka iyo magacaabidda shakhsigaas heerkaas caalamkana Mareykanku uu duldhigay 7 milyan ilaa 5 milyan meelahaas oo doolarka Mareykana madaxiisa ninka noocaas caalamkooda raadinayo Ethiopia ilaa hadda uu wantir ka yahay marka ma la odhan karaa Ethiopia waxay sameyn kartaa diyaaradahan drone-ta inay ku duqeyso xafiiska Robo uu ka fadhiyo Muqdisho wallahi horta waxa la oran karaa arrintan runtii anigu ma aaminsani inay arrin hal qolo lagu tilmaami karo ay tahay dagaalka laga qaaday Soomaaliya dagaalka Soomaaliya laga qaaday sidaan hore kugu sheegay wuxuu salka ku hayaa qabyaalad iyo 1999 qofkii raba inuu ogaado dee khibrad baa loo baahan iyo aqoon in lagu fahmo dagaalkan anigu ma qabo dagaal al-shabaab baa leedahay inuu yahay way al-shabaab intaasoo sanadood bay jirtay weligeed waa jirtay waa joogtay Ethiopia iyo xuduudka dowlad deegaanka iyo Soomaalida may weerarin waxna uma geysan way joogeen weligood marka waxaan in abaabul laga shaqeeyo waxaan waa dad kala wada kuwan hadda meesha qabsaday iyo dowlado kale baa wada wuxuu marka magaca nimankan dambiga anigu ma qabo in la saaro iyaguna kamay hadlin bay odhan annaga geysanay oo weerarnay may dhihin marka runtii Soomaaliya waxa kaliya loo adeegsaday in lagu burburiyay waa qabyaalad dadkeeda iyo shicibkeeda in la qaybiyo reer caalamku waa lagu burburiyay Soomaaliya waa ku burburtay 30 sano iyo dheeraan baan dowladda Soomaaliyeed ee madaxweyne Maxamed Siyaad Barre naxariistii janna Allah ka waraabiyo jannatul firdaws al-a'la hadii 20 sanadood meesha uu Soomaaliya gaarsiiyay horumarka ay gaadhay xagga tacliinta iyo xagga caafimaadka iyo xagga warshadaha iyo xagga ciidanka dhinac walba iyo xagga hay'adaha iyo infrastructure-ka maartay kaabayaasha dhaqaalaha sida airport-da iyo dekedaha haddii aan indhaha la iska tirin waa la ogyahay waana la joogo sababta loo burburiyey
cadow baa burburiyey waxaana loo adeegsaday qabyaalad baa lagu burburiyey SNM baa la sameeyey waa qabiil hal qabiil baa SSDF baa lagu sameeyey hal qabiil baa USC baa lagu sameeyey hal qabiil baa sidaas lagu burburiyey dalkii qabyaalad qabiilo la soo abaabulay oo dad ciidamo ah iyo dad saraakiil inta laga soo dhex sameeyey ee lagu abaabulay dowladnimadii iyagoo qabiila laakiin magac jabhadeed huwan badalka lagu burburiyey kuwan hadda xasan sheekh iyo xusleeyihiin oo Soomaaliyeed marka markiiba ficilka la qaaday iyo tallaabada la qaado sida cagada biyuhu ku jiraan oo caddahay bay u caddahay marka arrintaasi anigu saasaan ku sheexi karaa dagaalkii la qaaday qabiilba ku salaysnaa okay waan gartay waa su-aasha si fiican baad noogaga jawaabtay nagana jaahiltatay mudane Cusmaan Khayre khabiir sare aad baad mahadsan tahay haddaan ku weydiiyo su-aal odhanaysa haddiiba mar kasta oo kooxahan hadda oo aad magac dhowday anna aan su-aalaha kaa weydiiyey ee uu xasan sheekh horkacayo oo ilaa iyo markaa taariikhda dib u raacdo aad ideolojiyadoodu aad eegto inay kolba meel isku qaadayaan maxaa kalifay inay kolba meel isku qaadaan iyaga oo Soomaalidu ama qabaa'ilo tahay ama deegaano kala degan tahay inay kolba meel ka durugsan ama u dhow oo laakiin deegaanka ay degaan kooxahaasi aan ahayn inay dagaalo ku qaadaan waxay ka raadinayaan maxay tahay ma inay hantida aagaa taala soo xaafsadaan soo gurtaan ma dhul ballaadhsi bay ka tahay mise in lacago wadamo shay intii laga soo qaato kabacdina annaga halkaa rashbayna camal oo kale ah maxayse tahay arrintan isku xidhan ilaa iyo Jabuuti iyo Muqdisho iyo aagaa taale ee Soomaalida kale ee dagaalada lagu qaadayo aynan ka warhaynin amaba aynan ku challenge gareynin dad walaalahooda u arkayaan laakiin iyagu markasta ay connectionka rootkaas isku xidhmo dagaalada loo qaadaya muxuu yahay guud ahaan horta marka arrintaas laga jawaabo waxa weeye nin masiibo ah oo waddanka Jabuuti haysto la yiraahdo Ismaaciil Cumar Geelle ninkii yaqaana uu yaqaana waxaan horta ninka masiibada ah ka shaqeynaya dadkan kale oo dhan wuxuu lugaha ku xadhanayo wuxuu u nool yahay qaab xun oo nolol xun oo Soomaalinimadii runtii qabyaalad iyo iriism iyo daaroodism iyo waxbuu ka shaqeeya markaan afka ku dhufto marka waa nin jirin dad badan oo isaga sidiisa u xanuunsanayaan waa jiraan oo uu ku shaqaysan karaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan lama wada cambaarin karo laakiin hadda kooxdan xamar joogtay xasan sheekh hogaaminayo dadka uu ku shaqaystay ka mid yihiin ee wuxuu sheego runtii iyo kuwa hadda hargeysa jooga laakiin waa isdhaamaan oo waa kala ilbaxsan marka waxaa la odhan karaa wax horta hadda lagu hoos noqdo maaha laakiin waxaa loo baahan yahay arrintaa inta lagu baraarugo in laga baxo si wanaagsan aad baad u mahadsan tahay su-aasha ugu dambeysa ee aan rabo inaan ku weydiiyo khabiir sare mudane Cusmaan Soomaaliya 30 sano iyo ka badan bay dadka shacabku samoodeen hal dhinac u badan yihiin 30 sano Soomaali soo leenaysay si kasta soo leeysan oo kala adkaan weeday oo taasoo kale reer ama qabiil ama koox dhulkii ay deganeyd oo laga haystaa ilaa hadda ma jirto marka maadaama Soomaaliya ayna kala adkayn miyana kula qurux badnayn in laga gudbo arrimahan dagaaladan iyo waxan oo Soomaali waxyaabaha ay dagaalka ku dayso inay wax kale ku daydo xaalad kale su-aashaas oo ayaa waxaan ku raacinayaa maadaama su-aashii u dambeysay ay tahay maxaad ummadda Soomaaliyeed kula talin lahayd maadaama soo gabagabayno barnaamijka mudane Cusmaan Khayre waayo ummad kasta oo waddan leh waddankeeda qarannimadeeda ay ku haysataa qarannimaduna waa magaca aad leedahay la baxday Soomaalidu waa hal Soomaali weeye 10 Soomaaliyeed maaha 5 Soomaaliyeedna maaha halkaas Soomaali waxay u baahan tahay in wixii khibrad laga qaato qabyaaladii waa la soo maray beelihii waa la soo maray gumaysta waa la isu soo kaxaystay dhinac walba waa laga soo maray washaqayn weeye lagu kala badin waa marka hadda waxaa quman
إلا جوان تورو ودتك حد يتشال وحن وده قبيلة كشقينية الصومال لماذا لا تجعلمية يقرن لماذا لا تجعلمية يجون سوين بقى إن يكون كمان الصومال لما الله بحه الصومال لما إن الله بحه ضل ينوف لنا واحد سنة والذكرى يحيبه يبطل إن قبض بالعكس الصومال لما إنت الله بحه إن وحن عجها الله لجو دولتنا بالسوق هي الشرعي هي constitution لو كلا تبيه ولا سكو احترام وقف كان حق السياسية وده كان حق السياسية فهذا ما أنت الله فريا ولا بهاي إلهي نحكبر لنا إنه إلهي جود أهم الصومالي بيرن جمله إنه إلهي إن كرسيه إنه إلهي كرسيه هو حكم كحد حياة المرة قاعد كحياة يعدي مرة ملاح لأحنا إنه إلهي كرسيه وده استحضر إنه يكون هجان ضلك يدتك فهمتي وأنا أهله بحشقات بدن إلا قبته وإسكا إيمان ميس وحي معك وسودرين شكرا أنا إلا قبته دي بدي يقول الله إسكاشلو الله يسصحه وقف خلا صحية وص وقاته وحلو صحي كوح صحية وحي وقرني يقولي وصح أنت عارف أنك يا بحي صومالي وحقه إيه معنت وأقولت الله وهو كتشوجا مالها أقعد تقالين إنسان iyo qabyaaladdan iyo burburka soddon sannadood iyo ka badan waqtigeeda iyo dalkeeda ugu cunay laga joogo cid maanta hadda wax laga qaadi karo oo inta deegaanka dowlad deegaanka lagu duulay hadda la doonayo in la burburiyo dhaqaalihiisa iyo ciidankiisa iyo systemkiisa waa dal Soomaaliyeed waa ummadda Soomaaliyeed waa gacantaadii midig iyo bidix waa meeshii aynu maanta ku baxsanayna aynu ku noolahay ee sharciyada ku joogno sida sharciga ku joogo marka waxaan leeyahay qolada dowlad deegaanka fiiro gaar iyo feejignaan gaar yeesha dalka sida ay u midowdeen ee gacmaha isu qabsateen ee ciidankiini iyo madaxdiini iyo shicibkiini baa gacmaha isu qabsateen isu haysta Soomaali inteeda kalena badbaadiye idinka maanta awoodii iyo dowladnimo gacanta ku hayay Soomaali inteeda kalena badbaadiye insha Allah bidin kareem ilaahay oo idin la garab galaya dadkuna inta fiican oo dhanayna way idin la jirtaa way idin garab taagan tahay intaasaan waxaan oran lahaa Soomaali kula talina ilaahayna laga yaabo oo ilaahay laga yaabo oo hal xishoodo oo dhiiggan la banaysanayo qofka maalkiisa iyo naftiisa iyo cirdigiisa la banaysanayo reer hebel weeye loo banaysanayo war waxaas shaqayn maayaan hal laga joogo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آد إياد أيو أمات سنيهاي كاسي وحوها رقعدا خبير سرع أو كنت خصوصا أمنيات كان سو شقيي دولديه صوماليا آد إياد ما سنتهاي خبير